Jasiiradda Carabta waxaa loo yaqaannaa magacyo dhowr ah sida Qaaradda Carabta. Badka guud ee Jasiiradda Carabta waxaa lagu qiyaasaa 3,237,500 kiiloomitir laba jibaaran. Jasiiradda Carabtu waxay ku taallaa qaaradda Aasiya. Qiyaastii waxay ku taallaa bartamaha adduunka, halka ay kaga beegan tahay qaaradda Aasiya waa koonfurta galbeed. Waxay sidoo kale ka xigtaa dhanka bariga marka la joogo qaaradda Afrika. Dhanka koonfureed waxay ka saaran tahay Levant iyo Ciraaq. Dhanka waqooyiga waxay ka xigtaa Badda Carabta iyo dhanka galbeed ee Gacanka Carabta iyo Iiraan. Jasiiradda Carabta waxaa loo arkaa jasiirad u ekaha ugu weyn adduunka oo dhan, iyadoo ugu wacan tahay meesha ay ku taallo. Cimilo ahaan, waddamada dhaca Jasiiradda Carabta aad ayay u kulul yihiin. Waddamada qaar sida Sacuudiga iyo Kuwait, heerkulka ayaa gaaro 50 digrii Celsius bilaha samarka ama xagaaga ee Agosto, Sebtembar iyo Oktoobar. Heerkulka ayaa qabooba ama hoos u dhaco bilaha hore ee sanadka sida Janaayo, Febraayo iyo Maarso. Laakiin inta badan waddamadani waa waddamada ugu kulul gobolka oo dhan. Sidoo kale roobabka sanadlaha ah ayaa ah xaddi aad u yar. In ka badan 600,000 kiiloomitir dhulka Jasiiradda Carabta waxa uu dhacaa saxaraha weyn ee Rubul Qaali, kaasoo ah dhul bahgooye ah ama cidla ah. Saxarahani waxa uu maraa dhowr waddan sida Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Saldanadda Cumaan iyo Yemen. Waa dhul ku noolaashiisu ay adag tahay, kiiloomitiraad fara badan oo faaruq ah, laakiin waa mid dad badani dalxiis ahaan u tagaan. Dhulka lamadegaanka Rubul Qaali, xayawaano duurjoog ah oo aan badnayn ayaa laga helaa dhulka Jasiiradda Carabta, waxaana ka mid ah dawacada, gaduudanaha, yeyda, biciidka, Arabian Leopard ama haramcadka Carabta, iyo nooc ka mid ah eelada ama deerada. Taariikh ahaan waxaa la sheegaa in kumanaan sano ka hor dhulka lamadegaanka Rubul Qaali uu ahaa mid dhir badan, xayawaano badanna laga helo, laakiin sanado badan kadib uu isu beddelay dhul qallayl lamadegaan ah. Jasiiradda Carabta waxaa lagu tiriyaa meesha ay ku kulmaan qaaradaha Afrika iyo Aasiya, iyadoo la eegayo halka ay ku taallo iyo kheyraadka dabiiciga ah ee ka jira dhulka Jasiiradda Carabta. Dhulkan wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyadeed oo aad u weyn marka loo eego adduunka oo dhan. Jasiiradda Carabta waxaa ku hareeraysan biyo aad u muhiim ah sida Badda Cas, Badda Carabta iyo Gacanka Cumaan. Saddexdan biyo ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna mashquulka badan gobolka iyo guud ahaan caalamka. Waa meelo inta badan ay ku safraan maraakiibta adduunka u socota ama u kala gooshaysa. Jasiiradda Carabta waxaa loo kala qaybiyaa 7 waddan, waxayna waddamadaasi kala yihiin Boqortooyada Sacuudiga oo ah dalka ugu baaxadda weyn Jasiiradda Carabta, Jamhuuriyadda Yemen, Dowladda Kuwait, Dowladda Qatar, Boqortooyada Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo ugu dambeyntii Saldanadda Cumaan. Marka la eego waddamada ku bahoobay Golaha Iskaashiga Khaliijka waa 6 oo kaliya, maadaama Yemen ay tahay dalka kaliya ee Jasiiradda Carabta ka tirsan ee aan xubin ka ahayn Golaha Iskaashiga Khaliijka. Marka la eego waayadii hore, Jasiiradda Carabta waxaa loo qaybin jiray dhowr gobol, kuwaasoo ahaa gobolka Najd, gobolka Xijaas, gobolka Tihaama, gobolka Baxrayn iyo gobolka Yemen. Dhanka dhaqaalaha Jasiiradda Carabta, Jasiiradda Carabta waxay caan ku tahay inuu ku jiro shidaal aad u badan iyo gaaska dabiiciga ah. Nolol ahaan iyo dhaqaale ahaanba waddamada dhaca Jasiiradda Carabta waa kuwo dhexdhexaad ah. Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah labada waddan ee ugu weyn dhanka dhaqaalaha. Dhulka Saxaraha ayaa ah dhulka ugu fidsan deegaanada Jasiiradda Carabta. Waxa uu dhulkani leeyahay taariikh aad u weyn, waana dhulkii ay ka soo baxday fariinta dulqaad kale ee Islaamka, taasoo ku fiday dhammaan daafaha caalamka.